haddii hadda boqolkii 80 beelood cabanayaan doorashooyinkiina soo baxaan sida ay wax ku xasilaan way adag dad jeclaysiga laga daayo waxa la jeclaado oo qof aad jeclaato waxay keentaa wax fara badan oo qurmay keenaysa magacaygu waa Deeq Axmed Faarax baa haddii aan u guda galo su'aashaas sidee u aragtaa doorashooyinka iyo sida ay u socdaan waxaan leeyahay wax fara badan waa qaldan yihiin wax fara badanna way saxan yihiin haddii aan kala qaado waxyaabaha qaldan waxaa ka mid ah Soomaaliya waa beeluhuna waxay sameeyaan kursiga ka dhaxeeya ama kursiga ka dhaxeeya familba maalin buu ku fadhiyaa familkii marka maanta lahaa inta laga qaado oo loo diido kii shalay hayay in laftigiisii lagu soo malmalo la yiraahdo asagii baa soo baxay la yiraahdo oo asagoo malxiis wada waxyaabo qaldan ay ka mid waxaa kaloo soo hartay taa doorashada waa ku qaldan tahay oo waxyaabo ka qaldan ay ka mid tahay beeluhuna aad bay uga cabanayaan waxyaabaha qaarkood waxyaabahaas waxaa ka mid ah beeluhu si toos ah meelaha qaarkood uga soo baxayaan sidii wax qaybta ahayd ama xildhibaannimadoodii ama doorashadoodii waxaan leeyahay arrintaa kulley waxaan isleeyahay dhaliisheeda waxaa iska leh dadka doorashada hogaaminaya ama doorashada mas'uuliyadda ka ahayd cid walba uma taalo waxaana loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed asagoo qanacsan oo ku qanacsan kursigii uu lahaa inuu helay beeluhu ay degan yihiin cadaaladu ka muuqato in xildhibaanadu soo baxaan si Soomaaliya markaa deganaansho ay u hesho laakiin haddii hadda boqolkii 80 beelood cabanayaan doorashooyinkiina soo baxaan sida ay wax ku xasilaan way adag saan isleeyahay way aniga aragtidayda waxaan intaa ku darayaa dadka doorashooyinka wada ama doorashada mas'uulka ka ah inay ka taxadaraan cadaaladda inay ilaaliyaan marka koobaad cadaaladda inay ilaaliyaan beelaha Soomaaliyeedna in loo simo xuquuqda ay leeyihiin ayadana waa bogaadinaya waxaan leeyahay marka midaas waxaan ku gaari karnaa xasilooni dawladnimo daacadnimo baan ku gaari karnaa ama berri qofka maanta haya xilka maanta ninka haya berri haddii laga wareejiyo beesha kale la siiyo ay ku qanci karaan beelaha kale wareegtadaadii yaa kugu soo socda marka waxaan leeyahay arrintaas dadka u xil saaran uu ka yahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada dad jeclaysiga laga daayo waxa la jeclaado oo qof aad jeclaato waxay keentaa wax fara badan oo qurmay keenaysa laakiin haddii yaa mudan yaa kursiga maanta lahaa yaa aqoonteeda leh haddii intaa la keeno wax badan baa hagaagayo toosay waxaan leeyahay si aan nabadgelyo u helno si aan xasilooni u helno si cadaalad beeluhu u helaan waxaan aad ugu celcelinayaa inay dadka doorashooyinka wada ama maamul goboleedyada ha noqoto ama ha noqoto ra'iisul wasaaraha ama ha noqoto guddiga doorashada loo xilsaarayba inaad iska ilaalisaan waxyaabaha cadaalad darrada keenaya